ardaydu ay waqti hore oo munaasib ah ka xaadiraan fasallada waxbarashada habsankana ay iska ilaaliyaan waalidiintu ardayda waqti hore ha soo taabasheeyaan maalinteenu dastuurka Soomaaliland u codeynayni yacna waxaan ahaa dadkii dhiirigelinayay bulshada inay dastuurka u codeeyaan dan hooyooyinkana annagaaba wax dhiganay iska daaba carruurtiimko subax kasta sidan oo kale ayaa lagu arkaa isagoo maraya jidadka waaweyn ee magaalada Berbera isagoo la socda gaari ay saaran yihiin mikrofoono codbaahiyaala kaasoo ardayda iyo dadweynaha ku baraarujinaya muhiimadda ay leedahay waxbarashadu tanina waxa ay ka mid noqotay hawl maalmeedka Axmed Cabdil Qalinle oo ku nool magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil saabtiif waan dhawahay subax kasta 5 iyo barka waxaanu bilownaa in markaasi maxaan ku dhahdaa aanu ku kalahna magaalada annagoo ardayda markaasi ku baraarujinayna in ay maartay xilli hore ay u diyaar garoobaan dugsiyada marka waxaanu ardayda wax ka barata dugsiyada kala duwan ee magaalada Berbera dhan ku baraarujinaa iyo waalidiintaba in ardayda la tababarsheeyo oo waqti hore ay galaan dugsiyada waana shaqo joogto ah oo maalinle ah maalinka salaad ka waqti ka subax kasta in shaqadaas waan ku kalahna kabacdi markay 7 gaadho ayaanu joojinaa markay ardaydu wada hooydaan ee dugsiyada galaan ayaanu joojinaa markaasaan dibadna u bedelnaa ogeysiyada kale Axmed uma sameeysan wacyigelin kale oo tanaasaa ka wadaan oo kala waxaanu sameeynaa wacyigelin kala duwan ayaanu sameeynaa walaal oo ay kamid yihiin maxaan ku dhahdaa nadaafada inaanu dadweynaha kala ku wacyigelino in arrimaha nadaafada inaanu ku wacyigelino maxaan ku dhahdaa in cashuuraha dawladda hoose maxaan ku dhahdaa magaaladan reeriyow kale oo aan gaarigan ahayn ma laha magaalada Berbera hadday tahay maxaan ku dhahdaa ubadka yareey luma ee magaalada kulma annaga soo baafina dadka xanuunsanaya dhibirka maartay wax ka qaba annaga soo baafina annaga ayaa diyaarina fagaarayaasha waaweyn sida munaasabadaha qaranka maxaan ku dhahdaa munaasabadaha diiniga ah sida ku iidaha waxaas oo dhan annaga diyaarina shaqadan ilaa goorma ayaad ku soo guday jirtay wallaahi waxaan shaqadan waa shaqadii ugu horeysay dawladda aan soo galay aan qabta aan ka bilaabay wali kama tegin yacna muddo 23 sanadood ayaan walaal ka shaqaynayay shaqadan markii ugu horeysay aan dawladda hoose imi 2001 markii ugu horeysay dawladda aan soo galay shaqadan aan bilaabay manaan dhaafin oo yacna waxyaha kale dawladda waan jeclaystay inaan tan ka shaqeeyo ma jeclaystay taasoo man intaan ku shaqaynayo wax kasta oo qarankani uu soo maray oo hawlo waaweyn oo u baahan garanaysa wacyigelin ayaan ka soo qayb qaatay hadday tahay talaaladii corona yacna wacyigelintii corona hadday tahay ka soo bilow maalinteenu dastuurka Soomaaliland u codeynayni yacna waxaan ahaa dadkii dhiirigelinayay bulshada inay dastuurka u codeeyaan gaarigan oo kale ayaan hawshaasi ku qabanay yacna waa dastuurka Soomaaliland maalintii aftida loo raadinayay shacabka ayaan ku wacyigelinay in maartay ay dastuurka Soomaaliland u codeeyaan ilaa maanta waan shaqeeyaa Axmedow shaqadani ma tahay shaqaad ku faraxsan tahay ama aad la dhacsan tahay inaad halka bulshada reer Berbera aad uga sii wado ruuxantii walaal hadaan ku faraxsanayn inta ma joogeenba waan ka bedelan lahaa marka nafsadaydu iska jeclaystay in shaqadan aan ka shaqeeyo Axmed muddadii ku guday jiray shaqadani gaariga codbaahiyaha weyn uu saaran yahay uu la socday waxa uu sabab u noqday inay waxbarashada ay ku soo biiraan isla markaasina ay ku dhiiradaan dad aan faham buuxan ka haysanin waxbarashada sida ay sheegayaan waalidiintani uu la kulmay Saab TV hadday waxbarashada tahay anagu tan kaliya ku baraarugnaba salaada hore carruurta ku soo kala hinno oo goornad gaariga waa ka gadhay sheegaya waqtigu u dhacay hooyo dabka aad u shidaba marka wax weeyay tababusha koobaad weeyaan dadka ayuu gaarigu nagu qoray baaso aan ku soo tababushan carruurta oo dadna hooyadu halka markii ay koobsa carruurta ay kicisa u labista u soo tababushay sidii iskuulka ugu taga gaariga wacyigelinta xaafadaha maraa inuu yahay shayga koobaad ee hooyooyinka iyo carruurta baraarujin ku sameeya waayo sababtay tahay wacyigelintu markeeda horeba kama soo hadhay waa dhiirigelintuna waxay u wanaagsan tahay bulsho kasta oo meel degan dhiirigelintu way wanaagsan tahay salaada subax marka la eedaamo salaada tukana ka bacdi markaas oo gaarigu soo baxaa hooyo kasta oo de marka dib u dhac ku iman jiray waxbarashadeeda carruurteedu inaanu iminka ku imanin baa dhici karta wuxuu ka qayb qaatay magaalada Berbera waxa la oran jiray markii hore waxbarashadeedu hoos bay u jirtay laakiin se iminka waxaan ula tartamaynaa gobolada kale waayo waxbarashadeedu maanta markii hore iyo iminka isku mid maaha haddana hooyooyinkana annagaaba wax dhiganay iska daaba carruurta iminka annagaaba dawladda hoose maanta noo furtay waxbarashadii oo dhigana waxbarashadii dadbanayd waxbarashada waxaan uga faa'iidnaa macdal labaan anagu waalidiin nahay aan hooyooyin nahay
oo nu habsaami karo wuxuuna siiyaa wacdigelin waa saacada aanu kuba xisaabtano weeye waa time-kaanu xisaabtano 5 subaxnimo marka salaada laga baxo iyo gaariga wacdigelinta bilaabaa dabadna waa wax nagu booran garaamsan waa baraarujinta gobolka saaxil waanu ku baraarugnaa caruurta isagaanu ku diyaarinaa isagaanu ku ambabixinaa time-ka aanu ku xisaabtanaa buu kamid yahay cabdirasaaq qaasin telefishinka saab magaalada berbera abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka moobilo iyo lacag kaash si aad uga mid noqoto guuleystayaasha ku shubo $0 ama $0.5 oo kaliya ama ka badan isla markaana ha furnaado teleefankaagu muddada 90 cisho ee abaalmarintu socoto adigoo isticmaalaya adeegga idahab شركة إسكارسين تعسر جاه سومتل